السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعلنا هادين مهتدين. إلهو نغدك كوها نونسان دادك نهانونية دمان دادك سوماليات برنامج كقفاعو كداوانية سومالي كنديان تي في كندا جيسانية راديو بورمي CKMS 102.7 FM ما انتو أمارين 4 بيشا فبراير 12 2025 hijriga islaamigiina uu yahay shuwaal 13 barnaamijka gufaaca waxaan kusoo qaadanaynaa waxa Dubai ka dhacay shir loogu talagalay madaxweynayaal hore iyo kuwa cusub ka mid ah oo ka dhacay Dubai. shirka waxa marti qaaday DV World chairboardkeega Suldaan bin Sulaiman madaxweynaha Somaliland. dadka barnaamijka daawanaya bal nala daawada madaxweynaha Somaliland oo ka hadlaya shirkii. John Defterius ayaa waxa uu weydiiyey madaxweynaha Somaliland Mudane Cabdiraxmaan Maxamed su'aal nuxurkeedu yahay dekada Somaliland ee Berbera ee ku taala meesha istiraatiijiga ah iskuna xidha bariga dhexe bariga Afrika iyo Asia maxay ka dhigan tahay 400 milyan ee dollar ay ku maalgelisay DP World dekada Berbera maxay ka tahay kobaca dhaqaalaha ee Somaliland iyo maalgelinta lagu sameeyay waxay uga dhigan tahay Somaliland iyo gobolka Geeska Afrika. What has it meant that $400 million investment by DP World to economic growth, what it represents to GDP? Thank you very much. Before I answer the question, I want to tell the audience I'm from Somaliland. One of the governments in the future. Madaxweyne Cabdiraxmaan oo hadalka qaatay ayaa waxa uu ku bilaabay inuu madaxda caalamka ee shirkaasi ku sugan u sheego inuu yahay madaxweynaha Somaliland oo ah dawlad mustaqbal u leh inay ku soo biirto qaramada la aqoonsan yahay ee dunida. Berbera port is the most famous port in the Red Sea. It's very old port, and DP World has invested $400 million in Berbera port. It was transformative. Berbera waa dekad caan ka ah nawaaxiga badda cas waa dekad fac weyn DP World ayaa ku maalgelisay 400 milyan oo dollar maalgelintaasi oo isbedel heer sare ah ka dhigtay dekada Berbera way casriyowday dekadu. It has modernized the port, it has increased the capacity of the port, and now it became a very important port that can give service to the to most of the African countries that have no. awoodeeduna waa ay korodhay maalgashiguna waxa uu ka dhigay dekad muhiim ah oo u adeegi karta badi wadamada Afrika ee aan dekadaha lahayn gaar ahaan macmiilkayaga ugu weyn oo ah wadanka aanu dariska nahay saaxiibka nahay ee Ethiopia oo ay ku nool yihiin dadweyne tiradiisu ay ku socoto ku dhawaad 140 milyan oo dadweyne ah. 140 million population. The Berbera will give a service to Ethiopia now, I expect. waxaan rajaynayaa inuu dhawaan dhamaystirmo heshiiska kala gudbinta badeecadaha iyo ganacsiga oo u dhaxeeya Somaliland iyo Ethiopia. Is that something you think you can get done within your first year in office, which would conclude in December 2025? Because everybody's been looking to. miyaa la filayaa inaad soo gabagabaysaan heshiiskaasi ganacsi ee Ethiopia iyo Somaliland oo ah mid muhiim oo la wada sugayo? My plan is to finalize before the end of the year. qorshahaygu waxa uu yahay inaan dhammaystiro heshiiskaasi inta ka horeysa dhamaadka sanadkan ayaa uu yidhi madaxweyne Ciro. Mr. President, I don't want to put you on the spot here because it's a very strategic time for Somaliland. Mr. John Defterius ayaa weydiiyey madaxweyne Ciro maadaama hadda ay ku sugan tahay Somaliland xilligeedu ugu muhiimsanaa dhanka istiraatiijiyadda caalamkuna ay danaynayaan isla markaasina maamulka Trump ee hogaamiye waddanka Mareykanka la hadal hayo inay danaynayaan inay aqoonsadaan Somaliland maxaad la yeelan kartaan Mareykanka marka la eego dhanka militariga dhanka istiraatiijiyadda goobta ku taalaan iyo sidoo kale iskaashiyada kale halkee bay maraysaa arrinta ictiraafka ee caalamka aad ka raadinaysaan? Well, regarding the current situation of the whole world, Somaliland is located in a very strategic location.
It has 850 kilometers of seashore in the Gulf of Aden. haddii aan ka hadlo xaaladda ictiraafka ee somalilan waxay muhiim u tahay istaraatiijiyadda dunida waxay leedahay 850 kilomitir oo xeeba oo ku dhararan gacanka cadmeed xilligii dagaalkii qaboobaa dekedda berbera waxay saldhig u noqotay quwadaha dunida maraykanka oo mar ah iyo ruushka oo mar ah waraysigii la waraystay dadka barnaamijka dhegaysanaya in badan dadku ma yaqaanaan DP World waa shirkad meelo badan adduunyada ka dhista free zone wax la yidhaah iyo dekadaha caan ku ah waana management waxa jeer board u ah Suldaan bin Sulaymaan oo asalku shirkadani managementkeegu ka bilaabmay Dubai dadka barnaamijka dhegaysanaya xaqiiqda dhabta ah sida ay tahay in badan waxaad arkaysaan buunbuuninta socota Somaliland oo aan dadka looga warramaynin xaqiiqda dhabta ah sida ay tahay oo rabno shacabka inaan la wadaagno shirkan isaga ah DP World chair boardkeegu wuxuu wacay 2 cisho ka hor isagoo aan loo yeedhin oo shirka looga yeedhin ayuu wacay isaga ayaa wacday maaha in madaxweynayaasha iyo dadka madaxdii ay shirka ku invite gareeyeen madaxweynaha Somaliland Cirro sida aad dadka qaarkood ka maqlaysaana aanay ahayn waxaan ognahay in ujeedada ugu weyn ay tahay in gobol xagar ay uga dhigaan oo DP World ay buunbuuniso Somaliland adduunyadana ay tusto horumarka ay ka wadaan laakiin waxaad ogaataan inay ku dhex jirto arrin kale oo la yaab leh oo in badan ayna dadku baraarugsanayn waxaan rabaa shacabka meel walba barnaamijkaygan ka dhagaysanaya Somaliland waxay ahayd 34 years independent ayay claim gareeyeen oo ay adduunyada u sheegayeen iyagu isku sheegayeen laakiin waxaad ogaataan iyadoo ay sidaa tahay dekadda berbera waxay tahay dekad tacabkii Soomaaliyeed galay tagaskii Soomaaliyeedna lagu dhisay dekad ummad Soomaaliyeed ku faraxsan tahay qof walba waxa aad samaynaysaan aanay only serve gareynayn dadkiina laakiin ummadoo dhan ay serve gareynayso laakiin xaqiiqdu ay tahay Somaliland dhexdeeda iyadoo sidaas ah oo ay sheeganayaan independent 34 years iyagii isku haystay yaa maamulaya dekadda ciidanan Ciise Muuse ahayna aan loo ogoleyn xitaa shaqaalaha arrintaasi waa arrin la yaab leh oo cid walba ay og tahay laakiin marka adduunyada lala joogo la tusayo waxa laga dhigayaa meel khatar ah oo adduunyadu ay arkayso markaas Soomaali inay necab tahay ay tusayaan ummadoo dhanina waxay ku faraxsan tahay horumarka aad gaadhaan cid walba ay ku faraxsan tahay lama diidana laakiin idinku realistic inaad noqotaan oo runtana isku sheegtaan ummadana runta loo sheego way waxaan imika arkaynaa oo socota shirkan waa ku xumayn dawladda Djibouti iyo dawladda federaalka Soomaaliya wax kale ma aha waxa ay tahay kaliya xaasidnimo imaaraadka ku jiro walaaladeen Djibouti markii ay u diideen dikadooda ka kaxeeyeen in ay dhoolatus ku sameeyaan iyagoo ka xun horumarka ay Djibouti gaadhay sidaas leegna waxaan rabaa dadka shacabka gobolada waqooyi inay u moodayaan maadaama uu Cirro khudbad ka jeediyo oo runtii aan rabo halkan inaan ummadda uga sheego wuxuu u baahan yahay afhayeen buu u baahan yahay sababtoo ah qofku marka uu dadka la hadlayo yaa tahay qof hadlayo madaxweyne ah waxa wanaagsan su'aasha lagu weydiiyo sideeda inaad u dhigto inta mistake ee uu galay ee uu kaga hadlay su'aashii la weydiiyay wax kale su'aal baa la weydiiyay Somaliland inuu Somaliland horumarkeega nabadgelyadeeda ka hadlay wuxuu ka bilaabay 91 halka aanu independent ka qaadatay who cares waxa la dibad uga hadli doontaa arrin kale haddana su'aal kale la weydiiyay oo ku saabsan dalka Mareykanka Trump wax la ogayuu ku hadlay ummaddu inay runta isku sheegto way dadka waqooyi jooga miidiyuhu te anad realistic dad run ku dhaqma runna sheega maba ahaba waa wax loogu talagalay ummadda inay dhalaan habaabin ku sameeyaan marka waxaad ogaataan shirkani gogaxaarka u aha macnaheegu maaha inay madaxweyne ahaan loogu yeeray maahayn ummadana waxa loo sheegayaa in shir اعتراف اعتراف maaha waxay kaliya ay tahay DP World inay iyadu is iibinayso walaalada Djibouti na dollar tus ay tusayso inay nacam waxa ay berbera ka wado
kaliya iyagoo dalkaasi aad arkaysaan walaaladeen iyo Soomaaliya aad ogteen xiriirkoodu sida uu yahay laakiin dee mid baan idiin sheegaya oo idinkana khatar aad ugu sugantihiin waxa rabaa shacabka Soomaaliland inay ogaadaan meel imaaraadku galay oo khayr ay ka keeneen lama hayo dalalka muslimiinta meel walba waa ogtiin wixii ay ku sameeyeen hadda idinka arrimaha socda ee aad arkaysaan siyaasadda adduunka socota waxa la rabaa Somaliland in mushkilada badan iyada dhexdeeda lagu abuuro oo ay ugu horeyso maxay in xuutiyiintu halka idinka soo garaacaan idinkuna aad u maleynaysaan Dubai inay difaacayso idinkuna aad ogtiin awoodiin iyo inta aad tihiin iyo sida aad u joogtaan iyo meesha la isku hayo siyaasadeed ogtihiin waxa uu Trump wadwado waxa uu ka hadlayo idinku laakiin uma muuqataan wax walba waxa idin muuqda ictiraaf wax la yiraahdo waxa leeyahay dadka degan gobolada waqooyi waxaan ogtiin gobolada waqooyi waxa isku tagay dad kala duwan shalay Somaliland adduunyada sidii ay ka ahayd maaha khaatumo state la yiraahdo bilaabmay oo adduunyadu ogtoo dhaqaale iyo funding intaba la siinaya imikana idinku sidaad isku aragtaan maahine waxa soo socdo isna ku xiga hadii Ilaahay yiraahdo ama jeclaada ama necbaada awdal state baa yadna iman doonta horaan uga hadlay gobolada waqooyi inaanay sidaasi ahaanaynin maamulka ay sheegayaan sidaasi ahaanaynin waxa inta dheer oo runtii wax laga xumaada ah waxaana la qoraal u qoray afayeenka xisbiga kulmiye Abdinaasir Maxamed Buuni oo sheegaya hadalkii uu qoray wasiirka warfaafintu Somaliland waa dhulkii Soomaaliyeed weey mushkiladda ugu weyn ee haysata waqooyina waxa weey in badan shacabka waxa jahawareer ku riday dad aan fahansanayn waxa ay tahay xitaa laanka laftiisu waxa uu yahay ma dhul gaar oo kala ma dal gaar oo kala waa Soomaali waa dhulkii Soomaaliyeed hadduu wasiirka warfaafintu yiraahdo anagu Soomaali barsentifan wax eebo ku jira ma jiro laakiin ay wax ka raadiyaan qoladii kulmiye oo la ogaa kulmiye sidii uu Somaliland u galay dameyskii ay geysteen dhibaatadii iyo colaadii sokeeye abuureen qabyaaladii dhibaatadii dadka ay ku abuureen asalkana kulmiye wuxuu ahaa SNM ayuu ahaa in badanna dadka kulmiye la socdaa waxay qabaan cudurka la yiraahdo trauma disorder dagaaladii sokeeye dad ay maskaxdooda wax yeeleen baa u badan oo aan ogeyn xitaa meelaha qaar kood waxay ka hadlayaan iyo wax ay leeyihiin marka waxa rabaa shacabka meel walba barnaamijkan ka daawanaya anagu reer lama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa factiska iyo xaqiiqda Somaliland inay ogaadaan dikadan barbara tacab badan baa ku baxay waa tacab Soomaaliyeed weey waxaad idinku gaar u leedihiin ma tood idinkiiba isku haysataan oo aad ogtihiin inay leeyihiin qaar inaga inaga mid Ciise Muuse mooyaan cid kaleba kama shaqayn karto ayaa haddana waxa loo sheegayaa wixii rabo ummadda markaas miidiyayaasha Hargeysa jooga waxa rabaa shacabka u sheegayaan waxaas waxa adduunyadu daawan karta maahine shame and you xishooda oo nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri adoonka muslimkii fulan uu noqon karaa waxayna uu noqon karaa beenaale ma noqon karo ummadan oo propaganda iyo been lagu habeeyay meel ku gaari mayso adduunyaduna been iskuma ictiraafto realistic in la noqdo weey ictiraafku waxaad idinku isku haysaan ma hadduu curri yahay madaxweyne African Union ka looga yeeri lahaa adduunyada kale looga yeeri lahaa shirkana madaxweynayaal baa ayaa lagu invite gareeyay isagoo as madaxweyne ma ahayn DV walba ka hadlaysay kaliya xiriirka idinka inta u mayna ahayd hadaba ummadda yaa la jahawareerin waxay rabaan loo sheegine Somaliland corruption is la timaado iyadoo haysa saxdo dadka la degan ee deegaanadan nabadha ku wada noolaadaan halka barnaamijka aad ka daawanaysaan waa Somali Kenyan TV kana dhageysanaysaan radio Boorame CKMS 102.7 FM waana tafaqtira Xaamud Suldaan Cali Cilmi Suldaan